عليكم ورحمة الله وبركاته. جنالك دaawaneysaan waa Baladi Official. Haddii taa markuu ugu horeysa fadlan subscribe saar gambaleelkana furo si ay kusoo gaaraan video aan soo gelinayno. Maanta waxaan ka hadlaynaa faa'iidooyinka laga helo cunida mooska. Mooska waxa uu leeyahay faa'iidooyin aad u tiro badan, lamana tirin karo faa'iidooyinka uu mooska leeyahay. Halkan laguma soo koobi karo. Waxa lagu tiriyaa mooska inuu yahay fawaakiya hodan ku ah fitamiinada, kuwaas oo dadka ay ka helaan fitamiinada A, B iyo D. sidoo kale mooska ayaa hodan ku ah qaar ka mid ah macdanta muhiimka u ah caafimaadka jirka bini'aadamka, kuwaas oo ay ka mid yihiin sida potassium, carbohydrate. sidoo kale waxaa ku jira qaar ka mid ah aashitooyinka jirka faa'iido u ah. Haddaba warbixintan waxaa idinkugu soo gudbinayaa faa'iidooyinka uu moosku leeyahay, kuwaas oo ay ka mid yihiin: 1. Yareynta miisaanka. mooska waxa uu gacan weyn ka geystaa in uu yareeyo miisaanka qofka, waxaana ku jirta maado lagu magacaabo carbohydrate oo la dagaalanta baruurta iyo dufanka. sidoo kale waxay qayb ka qaadataa in uu qofka miisaankiisa hoos u dhaco. 2. Awoodsiin. mooska waxa uu leeyahay awoodsiin dheeri ah oo uu jirka siiyo, waxaana inta badan lagu booriyaa dadka sameeya almiitada inay cunaan mooska ka hor inta aysan sameynin almiitada, kaasi oo jirka siinaya awood dheeri ah oo suurtagelinaysa inuu qofka almiitada kusii jiri karo ilaa 90 daqiiqo oo xiriir ah. 3. Waxa uu daawo u yahay habdhiska dheefshiidka iyo calool istaaga ama calool fadhiga. waxaa ku jira mooska nooc ka mid ah borotiinada geedaha, waxayna qayb ka qaadataa inuu si wanaagsan u shaqeeyo habdhiska dheefshiidka iyo inuu jilciyo caloosha isaga oo wax daawo ah aanan loo kaalmaysanaynin. Waxa uu la dagaalamayaa mooska inay caloosha fariisato. 4. Waxa uu daawo u yahay aashitada caloosha ku jirta. waxa uu ka shaqeeyaa mooska in uu daaweeyo uuna yareeyo aashitada caloosha si degdeg ah. 5. Waxa uu daawo u yahay dadka caba sigaarka. waxa uu daawo caafimaad u yahay dadka caba sigaarka, kaasi oo ka saaraya wasakhda sigaarka, waxa uuna yareeyaa saameynta uu sigaarka u leeyahay jirka. waxaana ku jirta kooxo fitamiino ah oo ka shaqeeya inay yareyso saameynta xun ee uu ku yeelanayo sigaarka. 6. Waxa uu caafimaad u yahay wadnaha. waxaa la leeyahay potassium-ka waa cunsur aasaasi ah, waxa uuna ka shaqeeyaa in uu ilaaliyo inuu wadnaha si nabadgelyo ah u shaqeeyo, waxa uuna habeeyaa dhiig-karka. cunsurkani potassium-ka waxaa la leeyahay cunsurkani cuntooyinka laga helo waxaa ka mid ah mooska. cunista mooska waxay yareysaa cudurrada ku dhaca wadnaha iyo wadna istaaga. 7. waxuu ilaaliyaa caafimaadka kelyaha. mooska oo la cuno toddobaadkiiba marar dhowr ah waxa uu yareeyaa cudurrada ku dhaca kelyaha 50%, maxaa yeelay waxaa ku jira cunsurka potassium, kaas oo ka shaqaysiinaya inay kelyaha si caafimaad leh u shaqeeyaan. 8. waxa uu la dagaalamayaa qabowga. dadka ku nool qabowga sida Turkiga, Ruushka iyo meelaha qabowga aadka u daran sida Yurubta ayaa waxay u isticmaalaan mooska. waxaa ku jira fitamiino aad u sareeya, kuwaas oo ay ka mid yihiin fitamiinada A iyo C. sidoo kale waxaa ku jira aashitooyin diidaya inay timaado qabow degdeg ah. waa ku mahadsantihiin daawashada videogan. haddii aad ka heshay fadlan la wadaag asxaabtaada. Thank you very much for watching.